باين بدل القرآن كيسو وشيء صدقنا بدل يا إله هاي لما شو كوني كرو ولا يا مكان كذب قالنو عن كذب قالنو أنا استغنوا ولا عليه نبات يسوي مالك وبركة مالك أنا نودلية إلى القصة وحشواي أو وحصد بيسواي إلى مالان وبدل مالك التلف وقدم ومالك إله بركة كغاد يسوي مال maanta ilaahay mahadiis saaka waxaan ku soo rarnahay warbaahinta raadiyo Gaalkacyo halkan waxa hareerahay taagan dhalinyaradii iftiinka gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo waxay diyaar u yihiin saaka inay bilaabaan gurmadkii walaalaha reer Gardafo ee go'doonsan fariinta ay dhalinyarada gobolka Mudug dirayaan waxa weeye walaalayaal reer Gardafo go'doonka waa ka baxaysaan waxaan maanta u qalab qaadanaynaa u taaganahay sidii aad go'doonka uga bixi lahaydeen ganacsatadii iyo shirkadihii aday ku yabooheen cagafyo iyo lacag fara badan dhalinyaraduna maanta xoogooda iyo aqoontooda ku yaboohayaan qof walba ganacsada goobtiisa ay ugu tagayaan guri walba ay tagayaan iyaga qaaraan ka bixinaya si ay ula qaybsadaan walaalahood reer Gardafo xanuunka iyo go'doonkana ay insha Allah taala ay uga saaraan waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradan isxilqaamayaasha ee maanta u diyaarsan inay dadkooda u samafalaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hogaamiyayaasha dhalinyarada alxamdulillah sallallahu ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sida uu sheegay gudoomiye tigay halkaan hadda maanta diyaar waxa ku ah guddiga gurmadka Gardafo iyo dhalinyaradii mutadawiciinta ahaa oo muxsiniinta ahaa iftiinka gobolka Mudug reeriyo Gaalkacyo isagu gundhigba u ah shaqooyinka hadda la wado waxaan leenahay barakallahu fiikum qofka islaamka 365 xubnood buu ka kooban yahay waa bariye waxa laga rabaa qofku inuu sadaqa bixiyo oo jirkiisa sadaqa ka bixiyo sadaqada waxa ugu yar dariiqa dadka islaamka maraya wax dhibaya oo yaala qofku inuu ka qaado inaguna maanta waxaan rabnaa jidad waaweyn oo la intifaacsado oo sanooyin dambe badan la sii intifaacsado qarniyaal gaara inaynu sabab u noqono jidadkaasi inay furmaan dad iyo duunyo iyo dugaag noolo tiro badan beer badan oo ilaahay uu qooyay oo dhibaataysan oo dhibaatada kaga baxo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ajirkaas aynu danaynayna ilaahay inuu ina siiyo hawsha aynu galaynana ilaahay inoo fududeeyo dadkana aabiyo hooyo alla inoo ka dhigo in ilaahay inoo irmaaniyo inaynaan bakayl la kulmin mid gacan yar inaynaan la kulmin waxa aynu doonayno sakhiran khayr baynu ka shaqaynaynaa sadaqaynu dadka faraynaa wanaag baynu wadnaa ilaahay wanaagga hayna ku garab galo idinkuna waxaan idin leeyahay hadaalinina inna allaha maca saabiriin sabirku waa liibaanta loo fuulo faraska loo fuulo liibaanta laakiin wuxuu ku yimaadaa dhib dhalandhoolka iyo daalka iyo haraadka loo dulqaato waxaynu baraynaa dadkeenu inay noqdaan muxsiniin insha Allah sanadkan maanta bilowday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sanad khayr inuu ilaahay inoo ka dhigo sanad nabadgeliyo inuu noqdo sanad baraariya barwaaqo inuu noqdo sanadkii Soomaaliya xasili lahayd inuu noqdo sanadkii Soomaaliya baran lahayd inay iyadu wax istartay inuu noqdo barakallahu fiikum saaka ay tahay kood bishii 2020 waxaanu bilaabaynaa gurmadka walaalaha Gardafo walaalaha ku go'doonsan gobolka Gardafo oo aanu sameeyno jid iyo caawimo annaka samafalayaasha waxay istigay wadan Yaasiin Cabdi iyo annaka isxilqaamayaasha iftiin gobolka Mudug waxaanu saaka reedownahay ama diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano gurmadka loo fidinayo walaalaha Gardafo oo shaqadeeda ahayd markasta aan garab istaagnayn walaalaha qof kasto muslina oo dhibaataysan maanta waxay haysataa Gardafo bari waxa laga yaabaa inaan qabsato marka walaalayaal aynu istaagno walaalaha muslimiinta ee Soomaalida haddana wada dhalashada dhow naga dhaxayso si aan wax uga qaban lahayn waa isxilqaamayaasha iftiinka gobolka Mudug iyo dhammaan bahda isxilqaamayaasha gobolka Mudug oo maanta u istaagay u kacdamay u danqaday diirkooda u dhaqaajiyay si walaalahood Soomaaliyeed walaalahood dhibaataysan walaalahood u damqaday oo doonaya maanta inay caawiyaan waxa rajaynayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu haleejiyo taariikhda wanaagsan ee walaalahan aan ugu tabruucayno waxaan baaq u dirayaa dhammaan cid kasta oo fariinteedan gaarto ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis guriga uga soo baxa waxa go'doonsan hooyooyin Soomaaliyeed waxa go'doonsan walaalo Soomaaliyeed waxa go'doonsan hooyooyin Soomaaliyeed hadda wuxuu tagi sheegay in hooyo Soomaaliyeed markay foolatay isbitaalka geyntiisi ay gaariyaasha soo mari waayeen oo la qaaday oo kor loo qaaday bal fiir hooyada Soomaaliyeed xanuunka fooshahay iyo xanuunka qaaditaanka fadlan waxaan baaq
iyo cod dheer iyo cod gaabanba ku dirayaa soo raaca hoganka soo raaca gacalnimada soo raaca dareenka dabqanaya walaalahan Soomaaliyeed aan u gurmano walaalahan Soomaaliyeed aan garab siino walaalahan Soomaaliyeed aan u kacno Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay iskaga naxariista hoos waxaan kaga naxariisan doonaa samada maanta diyaar baa una anaga daa reeftiinahay haddaan dhalinyarada gobolka mudug nahay diyaar baa una walaalahan Soomaaliyeed inaan garab siino inaan gacan siino fadlan dadka guryaha ku jira baaq baan u dirayaa ka soo baxa walaalihiin ayaa dhiban idinkana guryihiina joogtaan waxaad haysataan hoos waxaad haysataan har waxaad cabaysaan biyo ayagu intaas midna ma haystaan fadlan soo kaca ayaan leeyahay dareenka hayna soo qaado damqashada hayna soo qaado islaamnimada hayna soo qaado soomaalinimada hayna soo qaado salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa bahda isxilqaamayaasha oo leh waxaan garab siinaynaa gacan siinaynaa intii aan karno walaalahan Soomaaliyeed ee reer Gardafo waxaan leenahay niyada ku dhista waxaan hay garabkiini waxaan hay gacantiini inta aadiin noolnahay aan dhulka ka sareyno waxaad gaari doontaan guul insha Allah taala waadna ka baxaysan dhibaatadaas Allah subhanahu wa ta'ala kuma fiirsan doono waadna ka baxaysan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh